السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. walaalahayga sharafta leh maalin wanaagsan, ciid wanaagsan. walaalahayga sharafta leh waxaa la hayaa see layahay insha Allah inaa nabad qabtaan baan inii rajeynayaa. anaguna sidoo kale aan nabad qabno alxamdulilah rabbil caalamiin. insha Allah idinkana sida ay si ka wanaagsan baan inii rajeynayaa. walaalahayga qaaliga ah maanta maxaan inii wadaa insha Allah oo sameysanaynaa. maanta waxaan sameynayaa qadadii gurigan sameynayaa hadda insha Allah bariis biryani baan inoo sameynayaa. insha Allah waxaan jeclaystay in walaalahayga sharafta leh ay ka faa'iideystaan. bariis biryani sahal ah baynu sameysanaynaa, aad easy u ah, marka qof walbina uu ka sameysan karo wax gurigiisa u yaala insha Allah tacaala. halkan waxa ii yaala xabad dijaaja, saa u jeedaan xabad dijaaja halkan ii taala, waan soo jarjaranayaa mar dhow. halkan waxaa iigu jira 2 xabo oo baradho ah oo aan saan usoo jarjartay, mukacbaad baan usoo jarjartay si ayna iiga burburin. halkan waxaa iigu jira basal 3 xabo taqriiban, basala baa iigu jirta oo iyadana aan saan usoo jarjartay. waxaan rabaa inaan ay ku baaba'do saliidda, ma raba inay soo taagtaagnaato. halkan waxaa iigu jira iyadana 2 xabo yaanyo ah. halkan waxaa iigu jira qorfe iyo xawaarkii oo sidiisiiya iyo waraq qaar. marka insha Allah waraqa inta tan hadda waxaan sameynaynaa biyaha bariiska baan ku shubayaa. inta tan iyada biyaha bariiska baan hadda ku shubayaa insha Allah. halkan isagana waxaa ii yaala waraq qaar. waraqa kan bariis cuntada hindida inta badan way isticmaalaan, hindida aad bay u isticmaalaaniin. marka waraqa kan hadda waxaan ku dhex ridanayaa isagana sanuunada biryaniga, suugada biryaniga hadda ku sameynayaa. isaga waa muhiim, waa lagama maarmaan haddaa rabto inay cuntada cunto hindi caadiga ku noqoto kana isticmaalaysaa. halkan waxaa iigu jira xabad yar oo sinjibiila, 3 xabo oo toona saa ujeedaanba, iyo kabsar. inta tan hadda iyada waan isku shiidaynaa, khalaatadan ku ridanayaa. inta tan suugadan hadhowda ku darsanayaa. halkan waxaa iigu jira bahaaraadkii xawaaro isku jirjira. halkan xabad maajida ii taala insha Allah. hadda waxaan sameysanayaa dijaajkan jarjaranayaa iyo basasha dabkaan isku saaraya, intaasaan isku soo xamirinayaa xoog. inta tan waa shiishadan korka kaga darsanayaa iyo bahaaraadka baradhada waxaasaan isku shiilayaa. marka insha Allah way wada soconaynaa. hadda dabkaan dijaajkan soo jarjaranayaa insha Allah waa ina tusayaa. waxaan naga ilaawaa halkan bariiska baa iigu jira, qof walba qiyaasta intuu rabo qiyaasanaya. marka insha Allah inta aan rabaa qiyaastay hadda baan dijaajka soo jarjarayaa. way wada soconaynaa walaalahayga sharafta leh. asxaabteyda sharafta leh hadda waa kan dijaajkii soo jarjaranay aan ku ridanay xabadana dijaajka ahayd. hadda waxaan ku ridanaynaa oo kaleeto basashii ku ridanaynaa. basashii markii ku ridano intaas hadda isugu keen xanaaqaysa. intaasayna hadda isku daynaynaa wax yar inay isku xamirsanto. basashii iyo dijaajkii baan hadda ku ridanay. dijaajku wuxuu noqonayaa guduud, baradhadana way ku ridanaynaa. baradhadiina waa tan wada xabo baradhada ahayd. dijaajku wuxuu noqonayaa guduud, basashu way baaba'aysaa, baradhadana waxay noqonaysaa guduud. wax yar waxaan rabaa baradhadana inay ii bislaato si ayna hadhow ceerin u ahaan, waayo aad bay u burbuuran tahay. marka insha Allah hadda wax yar baan daysanaynaa. intaas baan rabnaa inay isugu keen baaba'do, dijaajka iyo baradhadana guduud noqdaan, basashuna ay baaba'do insha Allah. ما شاء الله تبارك الرحمن. واكل دجاجكي iyo basashii iyo baradhadii. hadda waxaan rabaa inay baradhadu iga burburto ma rabo. dijaajkii wuu gudutay, baradhadii way gudgudutay qaybteed ma sha Allah. marka hadda waxaan rabaa inaan bahaaraadka ku darsado. xawaaradii baan ku darsanayaa insha Allah. xawaaradii baan ku darsanayaa. hadda maajidkana waan ku darayaa isagana. maajidkana waan ku daray 2 xabo waan ku daray, yani waa 1 xabo bas 2 mukacbaad. milix baan ku yareysanayaa, milixda badan ma rabo. hadda waxaan ku darayaa yaanyadii, sinjibiishii iyo toontii aan isku shiiday waan ku daranayaa. hadda intaas waxaa u daynayaa inay isku huurto, xoogaa ay isku bislaato. markaas waxaan ku darsanaynaa yoogar baan ku darsanaynaa. markaas hadda intaas u daynayaa inay xoogaa isku soo bislaato, isku huurto insha Allah. walaalahayga sharafta leh hadda waa kan sanuunadeena waa inoo diyaar. waxaan ku darsanaynaa yoogarka
yoogarkeenu ku darsanaynaa ama sabaadiga qof kasta sida u yaqaano. hadda roobkaasaan ku darsanaynaa insha allah. halkan aan ku diyaarsaday bariiskeenina waa kan waan ka miiray si furfur yahay fiiriya maasha allah. xabad haysata ma lahan. bariiska marka aad huurinaysid ama biryaani ka dhigaysid ama wixii aad rabtid aad ka dhiganaysid waa inuu furfur kuu yahay marka maasha allah. haddii suu furfur yahay ma aragtaan qorfa ku dhex jira caraftiisa maasha allah lagama sheekeyn karo. qofkii arkay keliya baa sheegi kara caraftiisa maasha allah tabaaraka raxmaan. aad buu u caraf badan yahay bariiska cad keliya cadaantiisa ugu cuntaa waaba ku qabanaysaa maasha allah. halkan waxaa iigu qasan loon asfara, halkan waxaa iigu qasan loon guduudan. waa kuwa kan red iyo yellow mid walba xoogaa baan ka qasqastay. hadhow markaan bariiska digsiga ku shubo aan ku hoorinayo baan korka kaga darayaa insha allah. waatan suugadeena hadda iyada inoo diyaara. waxaynu ku shubaynaa bariiskeeni oo halkan inoogu diyaarsan baan korka ka saaraynaa si aynu isugu hoorino bariiska iyo suugada isku hoorinaynaa. dabkeenu isku saaraynaa adigu wax yar baan dabka isku saaraynaa waayo bariisku aad buu furfur u adag yahay marka waa inaan dabka ku cesho si aan cabaar u hoorsado insha allah. waa kan hadda bariiskeenu waa inoo diyaar. digsiga waa ku wada shubno bariiskii iyo suugadiisii. waxaan ku darsanaynaa wax yar oo kalara ku darsanaynaa. kii kale oo asfarka ahaana waa kan. hadda waxaas wax khafiifa buu ahaanayaa qurux buu siinayaa insha allah. hadda maxay u baahannahay dabkeenu saaraynaa in muddo 30 daqiiqo ah bayn dabka saaraynaa. aad bayn dabka ugu gaabinaynaa insha allah. wada soconaynaa maasha allah tabaaraka raxmaan. waa kan bariiskeeni iyo dijaajkeeni sidaasuu diyaar inoogu yahay maasha allah tabaaraka raxmaan. urkiisa iyo dhadhankiisa ana inaga hubo baan ku iri lagama sheekeyn karo maasha allah. insha allah waxaan rajaynayaa gabar kasta inay tijaabiso gurigan ay uga dhigto qado baan insha allah rajaynayaa. aad u mahadsantihiin sida quruxda badan aad ila socotaan asxaabteeda qiimaha iyo qaayaha leh. asxaabteeda cusub soo dhawaadaan leeyahay. asxaabteeda horena aad baad u mahadsantihiin meel kasta aad dunida ka joogtaan insha allah. like-ta share-ta commentiga asxaabta cusubna subscribe-ta iga ilaawinina baan leeyahay insha allah. waxaan rajaynayaa inaad bariis biryaanigan aad soo tijaabisaan. mahadsanidin meel kasta aad adduunka ka joogtaan. aad baa mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.